taliska ciidanka badda ee maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegeen inay soo qabteen dad ay ku tuhumayaan inay ku lug lahaayeen howlo burcad badeednimo waxaana dadkan lagu soo bandhigay magaalada Bosaaso wariyayna magaaladaasi Cabdinaasir Daacad ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaa maanta ugu soo bandhigay warfidiyeenada xarunta ay ku leeyihiin ciidanka badda Puntland duleedka magaalada Bosaaso 3 nin oo ku sheegay inay ahaayeen burcad badeed iyo qalab ay wateen raggaasi kuwaasi habeenkii xalay laga soo qabtay deegaanka Mareero oo ka xiga dhanka bari magaalada Bosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaasi isku abaabulayeen raggan iyo kuwa kale oo ka baxsaday ciidanka badda Puntland sida uu sheegay warfidiyeenada taliyaha ciidanka badda Puntland maanta oo ay bishu tahay 10 bisha December sanadka 2013 waxaanu halkan ujeedada war-saxaafadeedka aan u qabanay waxay tahay inaan ku soo bandhigno burcad badeed aanu xalay habeennimadii ka soo qabanay deegaanka Mareero halkaas oo ay burcad badeedaasi isku abaabuleysay inay badda galaan burcadaas oo ayagu ilaa 7 qof meelaha dhanna markii hore laakiin aan hadda gacanta ku soo dhignay 3 qof sida aad hadda arkaysan iyo 3 qori oo ay siteen iyo saxiimadaas aad aragtaan oo ay iyadana ku howlgalayeen oo ay saaran yihiin 2 motor oo 40 layaal alxamdulillah gacanta lagu soo dhigay waxa weeye runtii inkastoo bariyahan ay hoos u dhaceen burcad badeedaasi iyo inay badda galaan Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaa docda kala baaq iyo digniin iswata u diray dhalinyarada wali rajada kaga jirto faralka burcad badeednimada waxa kale oo aan halkan maartay uga dirayaa maartay digniin dhalinyarada yararka ah ee odayaasha nimanka kabaa'irta ah meelaha lacagaha la fadhiya ay soo dirayaan ee badda ku halaagayaan inay iska daayaan nimankaas dhalinyaradana laftirkooda in uu aqligoodu shaqeeyo oo ay ogaadaan in waxaan wax soconaya inuu ahayn oo arintaasi maartay ciidanka badda uu soo jeestay oo waajibaadkiisa ay tahay meel kasta oo ay galaan iyo meel kasta oo ay tagaan bana aan ugu tagayno waana soconaynin in maartay meelaha laga kaluumaysto sida daraadeed waxaan leeyahay war naftiinana halaagina xabsi dheerna ha mutaysanina ilaahayna shaqo uu badiyay ilaahay hal la baryo hana la shaqo tago wadankuna waa shaqo miran amalka ciidanka badda Puntland ee markii la soo gaabiyay magacooda loo yaqaan BMBF ayaa dagaal adag kula jira burcad badeed iyo waliba cid kasta oo ku soo xadgudubta xeebaha Puntland waxaana muddadii 3 sano ay jireen lagu xasuusanayaa soo qabashada burcad badeed fara badan iyo waliba doonyo ay wateen dad ajaanib ah kuwaas oo jiriif baan ka wada xeebaha Puntland Cabdinaasir Daacad telefishinka caalamiga ee Kalsan xerada ciidamada badda Puntland ee Bosaaso